laakiin markii ay wadankii laga qaxayn muqdisho aadnay oo meel quraanka waqooyiga xilliga kaga horeysay hadda laysa soo gaadhiyay xilliga aadka quraanka ugu fiicnayd oo qadiyadaas oo kale aad ugu badan tahay dhalinyaradu inay waqti fiican quraanka dhameeyaan. alxamdulillahi rabbil aalamiin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعنا ونكسر ما مداود يركزوا لهذا برنامج كنا عويسك علماء برنامج عويسك علماء وحمان تمرتين هو دكتور حسن شيخ علي ورسمه كهرنتينا برنامج جرين أين وحكوا جانو وكما دكتور حسن شيخ علي ورسمه داو شوعان دكتور حسن شيخ علي ورسمه وحو كل شيء مقالة الرياضة دلك السعودية العربية كوني سجال بقولي سجالية تضباطن كي waxaana uu doctorku ka soo jeedaa qoys ku abtirsada aqoonta diinta waxaana uu quraanka xifdiyay isagoo da'yar oo da'diisu ay tahay 9 jir sheekhu waxa uu heerka koobaad ee waxbarashada jaamacadda masterka ilaa PhD-da ka qaatay jaamacadda al-Jaamica al-Islaamiyya ee ku taala magaalada barakeysan ee Madiina al-Munawwara waxaana uu ahaa takhasuskiisu culumta xadiidka Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame culimadii wuxuu soo dhigtay waxa kamid ahaa waalidkii Sheekh Cali Warsame Sheekh Cabdikariim Xasan Xoosh iyo Sheekh Cabdilmuxsin Al-Abaad rag ay wax soo wada qaateen waxa kamid ahaa Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil iyo Dr. Faysal Maxamed Cali Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame waa barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka sida jaamacadda Najaax ee magaalada Burco iyo jaamacadda Nugaal sidoo kale Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame waxa uu casharo iyo khudbado ka jeediyaa masaajido ku yaala magaalada Burco ee gobolka Togdheer intaas iyo in kale ayaynu ku qaadan doonaa kulankeena cawiiska culimada oo marti inoogu yahay Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame waa tahay daawadayaal intaas hadaynu kaga nimaadno taariikh nololeedka Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame waxa aan si toos u geli doonaa barnaamijka marka ugu horeysa Dr. Xasan ku soo dhawo barnaamijka cawiiska culimada aad iyo aad baan Sheekh Xamse iyo tiimka la shaqeynaya barnaamijka cawiiska culimada u salaamaya uguna waxaan baliyeenaya ku bogaadinaya barnaamijkan qiimaha badan ee waxtarka leh insha Allah khayr ma santahay disar waxa rabay inaan ka soo bilowno sida taariikh nololeedkaaga ka muuqatay waxaad quraanka xifdiday adigoo 9 jir ah waana adag tahay in la arko qof da'daas inta badan marka loo eego dhulkeena quraanka inta ku xifdiya maxaad u malaynaysaa in Dr. Xasan ay u fududeysay in quraanka 9 jir ku xifdiyo muddo intee leeg baanad ku xifdiday كلي حنفليا إن شاء الله تعالى وحول التوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا تساكوكا قضية اللبادنا بيئة أما جوغا أما فامليغا والدكو آد ودانينيي ورقبضني إلى الدشين إلى لحنين مالها سان وهين إنو نلونك صوبحو معلين قارب نو سمييي dadaal badan buu bixiyay laakiin markii ay wadankii laga qaxayn muqdisho aadnay oo meel quraanka waqooyiga xilliga kaga horeysay hadda laysa soo gaadhiyay xilliga aadka quraanka ugu fiicnayd oo qadiyadaas oo kale aad ugu badan tahay dhalinyaradu inay waqti fiican quraanka dhameeyaan baan tagay muddo aan sanad dhamayn hadii la badbadiyo sanad ama ka yar baa ilaahay igu waafajiyay quraanka inaan dhameeyo kowna waxa ka ahaa danayn badan oo anigu aan danaynayay وأن حيسيني وراكنا دمبيو وحكلو سول بيسي برنامجكي مركا دجسنا المدرسة دي عندي صلاة الصباح مركا لا سو غلو قبل كوكو دحاي انت قددي نص ساعه مويانه oo noloshaydo dhaniba ay ahayd quraan oo ahayd inta guriga la joogayna ay ahayd muraajaca wixii lamida ducada waalidka iyo danayntiisa iyo dabagalkiisuna iyaduna qayb weyn bay ka ahayd insha Allah ta'ala jazakallahu khair طبعا sida aad sheegtay waxa laga yaabaa dad badan waxay aad u yaqaanaan waalidka Sheekh Cali Warsame oo kamid ah runtii culimada ugu waaweyn ee Soomaaliyeed bal isaga laftigiisa dadku waxay barteen Sheekh Cali Warsame oo sheekh bal Sheekh Cali Warsame aabba iyo sidii runtii aabanimadiisa uu idin la dhaqmay uu idin soo koriyay hadaad eray ka tiraahdo wallahi aabba kulley marka laga kaalayo ubadkiisa oo waliba inama u badna xilligaas chance badan isuma helin oo xilligaas wadanka waxa uu yimid statenkii ilaa 88kii la 6 wiil baa u joogay dawladdu sida loo ogsoon yahay xilliga cadaadis bay ku haysay dacwadda culimada in badan oo waqtiga kamid ah wuxuu ku xukunaa dilbu ku xukunaa oo wadankaba waa ka maqnaa inta uu joogana mashquulkiisu aad buu badnaayay safaradiisu u badnaayeen laakiin ilaahay ma hadda wuxuu ku guuleystay in macallin uu soo xulay oo kaalintiisa
qayb ka mida buuxiya in waxa weeye guriga noogu keenay uu taa aada ugu dadaalay inta uu joogana barnaamij aada u wanaagsan oo qofka cilmiga wax jeclaysiinaysa ayuu ku dadaalayay. waxaan xasuustaa noloshayda baxdigii ugu horreeyey inaan wax baxdiyo maktabad galo muddaa 6 jir meelahaasaan ku bilaabay. waxay ahayd inta maalinta jimcahoo kale wuxuu nus saaco la siinayaa ninka masale soo hela. masaladu masale qofka uga baahan maaha baaritaan badan, laakiin maalan wuxuu odhanayaa baab ka mida kutubta fiqiga oo kale al-istisqa, ninka waxa weeye soo saara kelmaddaas kutubtaa dhex gala naxwo iyo usuul iyo fiqi iyo xadiis ma kala naqaan. nin waliba kitaab buu ku nasiibsanayaa, mid tafsiir buu soo qaadaya wuxuu ka baaraya istisqa, mid kitaabkii fiqigaha buu ku beegmaya wuxuu ka soo saaraya istisqa. dabadna ninka ugu horeeya hela kelmaddii ama baabkii ayaa abaalgudka la siinayey. barnaamij noocaas oo kala duwan oo ujeeddadiisu ay ahayd kutubta in lagu xidhmo. mar kale waxa weeye waxaan xasuustaa markii qur-aankan dhameeyoo kale abaalgud buu igu ballan qaaday, koodhadh iyo waxaan xilliga dhallinyaradu jeclaayeen. markii aan tegeyna waxa weeye uu ii soo iibiyeyna de waxay ii noqotay farxad. marka tashjiica waxyaabaha uu aadka u isticmaali jira bay ahayd. waxyaabaha kale camaliga ah sida in wax la baadhoo kale, hadday tahay talada markuu arko niman ciyaarta waxa weeye ku mashquuloo kale, si gaara intuu la fadhiisto ayuu talooyin gaara, ragga waad ka fiican tahay, waad wanaagsan tahay, rajaan kaa qabay iyo diilan kaa lahaa, hay niyad jabin. adigu taasina ficlan saameyn weyn bay nagu lahayd insha allahu tacaala. waa tahay marka intaa laga yimaado waxa dalka ka jiray waqtigii aad kacantay macaahid, adiga sees u noqotay inaad cilmigan shareecada barato, ku takhasusto ilaa heerka maanta aad joogtay ee doctoorka aad ka gaadho. macaahiddaas bal hadda erey iyo laba macaahid nooceeya bay ahaayeen, yaa waqtigaa joogay dhigi jiray, sidee baad ugu soo kacanteen macaahiddaas? wallahi macaahiddaas waxaan filayaa waaba meeshaan cilmigaba ka bilaabay iyo xiisihiisa iyo danayntiisa. muddadan qur-aanka dhameeyey ilaa ka qaangaadhka ku dhowaanayo iska iskuulle iyo baan isaga badnaa, laakiin 96kiibaa magaalada Laascaanood wax laga furay macahad liicdaadi ducaa wa tahiil al-a'imma loo bixiyey oo gobollada waddanka oo dhan la isaga yeedhay, arday la isaga yeedhay, lasoo xulay. manhajkiisuna ficlan uu aada u tayaysnaa. macadka noocaasa waxaan kula kulmay dad kala duwan oo gobollada kala duwan ka kala yimi, dad himo iyo waxa weeye dadaal badan xambaarsan, ragga mutuunta xifdinaya, ragga waxa weeye akhriska iyo maktabadda gelaya, niqaashka ardayda u dhaxaysa. noloshada ficlan wax badan bay ka bedeshay, walow cadaadis xagga Itoobiya kaga socday maxadkii 5 bilood ka bacdi aanu iskaga soo noqonnay. laakiin waxaan filayaa mutuuntii ugu muhiimsanayna oo halkan ka bilaabay ina maalig oo kale 300 bayda ugu horreeyey halkaasaan kusoo xifdiyey. maxadkaas uu ahaa markuu kaasi naga xidhmay 96 baa kaa mid la mida oo qaabkiisoo kale ah, isla manhajkii ku dhow kaa waxaa kulle gacanta ku hayay ugu weynaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Sheekhan Laascaanood, sheekhna ka ahaa, maamulana ka ahaa. maxad kale oo ceerigaaba ku yaala isaguna isla magacaa leh, macadu sharci ama macadu sunna liicdaadi ducaa baanu isagana tagnay. gobolladoo dhan baa isagana la isaga yimi. isaguna aad buu u tayaysnaa. waxaa gacanta ku hayay Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albaani Kucaana, Sheekh Cabdikariim Xasan Xoosh, Sheekh Imaan Maxamed Deriye, Sheekh Maxamed, Sheekh Ismaaciil, rag badan oo noocaas baa gacanta ku hayay wax ka dhigayay. labada macahad oo aan filayo isaga laftiisuna qabyaalad iyo habar iyo dagaal ka dhacay buu u istaagay xilligaas, oo isaga laftiisu 5 bilood meelahaas u socday. laakiin sanadka 10 bilood markii la isu geeyo waa tii sabab u ahayd bacd allah inaan sii wato cilmigayga xagga Madiina iyo aan aado insha Allah. طيب haddaynu u nimaadno isla arrinkaas aad hadda ka dhawaasay jaamacadda, sanadkii 2000 baan filaya ayaad dalka ka tagtay. muddo dhowr iyo 10 sanadoodana waad ku maqnayd heerarka kala duwan ee jaamacadda. dhalinyar badan oo Soomaali ahina waxay aad u xiiseynaysaa bal in maalinun jaamacaddaas ay tagaan oo ay ku biiraan. sidee loo helaa
jaamacaddaas marka aad waxa weeyaan aad ka waranto adigu se jaanis nooceeya baad ku heshay inaad jaamacadda tagto jaamacadda horta barigii hore waxay jaamacad islaami iyo caalamul islaami oo dhan loogu talagalay inamada muslimiinta loogu talagalay 80% ajaanib inay noqdaan loogu talagalay laakiin barigii dambe jaamacad kolley waxay iska noqotay sacuudiyaana oo systemkii dowladda iyo wasaaradda tacliim alcaali in la maro ay iska noqotay tacqiidaad badan iyo shuruud badan iyo oo intaa la cusboonaysiinaya ayaa soo baxay annagu jaaniskan xilligaa haysanay kulle dhinacna waxaa laga odhan karaa jaanis bay ahayd oo dadka danaynaya ama doonaya inay dalbadaan ma badnay dhinaca kalena dadka la qaadinaya soomaaliya oo dhanba waxay ahayd waddankii soomaaliya la isku odhanayay 6 qof 7 qof ugu badnaan baa laga qaadanayay marka dhinacana waxay ahayd jaanisku ciriiri buu ahaa waxa ugu badan xilligaa lagu aqbalaya waxay qofku inuu tago la kulmo jaamacaddii qaybta qabuulka iyo tasjiilka la iska sajilo muqaabalo ama interview ay ka qaadaan siifiyadiisa uu gudbisto sidaasaa lagu aqbalayay dadka tegayena qayb la aqbalay qaybaan la aqbalinba way lahaayeen laakiin waxa ugu badan ay danaynayeen qofka ay qaabilayaan muuqaalkiisa iyo diin inay ka muuqato waxaa kaloo ka mid ahaa hadduu yahay xaafid quraan oo kale hadduu kutubta iyo culumta sharciga wax ka soo qaatay waxyaabahaas waxyaabaha mudnaanta la siinayo ayay ahayd laakiin hadda kolley tegid uma baahno system electroniya noqotay qofku shahaadooyinkiisa iyo wuxuu u baahan yahay online buu ku xaraynayaa waxa ugu fiican jaanisna ay tahay qofka doonaya inuu dalbado inuu taskiyooyin fiican iyo culimada uu wax ka dhigtay qoraallo fiican inta uu ka qaato isaga laftiisuna caddaymo uu keeno maalan qur-aanka inuu xifdiyey ama mutuun inuu xifdisan yahay ama cilmiga heerka uu ka joogo oo cid walba waxay danaynaysaa qof wax loogu kordhiyo u haya bays leh marka waxaan filayaa taasi waa qodob talabaadku hadda aad bay u badan yihiin maadaama waxay online noqotay oo tegiddu hadda macno badan ma samayso qofku intuu dhiso un fayl fiican oo wanaagsan uu ku dadaalay inuu gudbiyo talabaadna dee alle subxaanahu watacaala uu u baryo una tala saarta alle subxaanahu watacaala waxaana ku talinayaa oo aan aad u baraarujinayaa marka mawduuca laga hadlayo dhallinyarada qaar ka midi inay niyaddooda ku xidhaan madiina un oo jaanisyo badan oo dalka yaalla ay dayacaan marka waxaan ku talin lahaa qofka hadduu secondariga dhammeeyo isagoo dalbanaya jaamicaadkaas sida jaamacadda madiina oo kale way fiican tahay qofku dalka inuu ka baxo haddana inaan waqti ka lumin jaamicaadkan islaamiga waddanka ku yaalla uu ka faa'iidaysta insha allahu tacaala markii aad soo noqotay waxaad dabcan bilowday casharo inaad bixiso waxaad bilowday jaamicaadka inaad wax ka dhigto waxaad bilowday safarro dalka gudihiisa iyo kuwa dalka dibaddiisaaba inaad runtii u baxdo marka maxaad isleedahay mashruuca ugu muhiimsan aad marka laga yimaado wax dhigista iyo duruusta masaajidada marka laga yimaado mashruucaaga dacawiga ah adigu aad aasaastay aad isleedahay muddooyinka soo socda waxaad rabtaa inaad wax ka qabato muxuu yahay kulley hadafkayga ugu weyn waxa uu yahay cilmiga alle subxaanahu watacaala dadka ugu talagalay sida ugu wanaagsan qaababka kala duwan wasaaisha kala duwan ama teknolojiyadda kala duwan in lagu faafiyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadday tahay dadka ganacsatada ah hadday tahay siyaasiyiinta hadday tahay qoysaska iyo faamiliyada dumarka iyo wixii lamida haddii ay tahay jiilasha soo baxaya hadba wixii baahidu u badan tahay ama dadku ay jahli kaga sugan yihiin ama mushkilaadka u badan yihiin kulley taas in xuluul loo doono hadal iyo af iyo qoraal iyo intaba kulley waa hadafkayga ugu weyn insha allahu tacaala ka ugu dambeeyana wuxuu yahay un kulley ilaahay baa wax hagaajiyey ummaddan dhibaatooyinka haysta iyo yoolka wanaagsan ee la doonayo inaan qayb laxaadle insha allahu tacaala ka wada qaato hadafkayga gabagabadiisu iyo guntiisu waa kaa weyn insha allahu tacaala waxaad doonaysaa inaad asaaliibta kala duwan ee teknolojiyadda oo kale aad ka faa'iidayso barahan bulshadu ku wada xidhiidho social media loo yaqaano ma isticmaasha alxamdulilah waa bejaj baan ku leeyahay qaar rasmiya iyo kuwa shaksiya rag dhalinyaro ardadeyda baana ila shaqeeyo oo wixii aan qabanayo soo gudbiya oo
dadka kala xidhiidha. aad iyo aad baad mahadsan tahay. sidoo kale waxaad gacanta ku haysaa xarun loogu talagalay cilmi baadhista. xaruntaas waa xarun nooceeya, maxaad se doonaysaa inaad ku qabato mustaqbalka, maxaad se doonaysaa inay meel noocee u eg noqoto? xarunta kulley sida magaceedu yahay waa markaz alaafaaq lilbaxuuthi wadiraasaat walistishaaraat watadriib. waxaan ugu talagalnay messajka anigu aan xambaarsanahay in aan markaska gudihiisa ka gudbiyo. lafdhabar waxa u ah cilmi baadhis, welibana loo kala mushkilaadkeena haysta. inagu inta badan af baynu ku xalinaa, soomaalidu waa oral bay isticmaalaan, laakiin iyadoo qoraala af soomaali ama carabi ama wixii hadba bulshada qaybta loo baahan lagu gaadhsiinayo in waxa weeye la sameeyo. cilmiga qaybihiisa kala duwan iyo wixii nolosha saameynaya in qayb laxaad le insha allahu tacala aanu ka qaadano. taasi waa mid. tan labaad, barnaamij nawciya ama mutamayiza ama hal abuura oo cusub oo xagga cilmiga ku saabsan inaanu bilowno. hadda insha allahu tacaala barnaamijta aanu gacanta ku hayno waxaa ka mida xifd almutuun mid la yidhaahdo, oo dhalinyaradu ragga qur-aanka xifdiyey ee maskaxda leh ee freeshka ah ee welibana dadaalaya hanka leh inaanu hagno silsilado kutubta say u xifdinayaan, welibana aanu ka dhegaysano oo waxa weeye laga dhegaysto barnaamij noocaas cala sabiil mithaal oo aan ugu talagalnay dad xula in la soo saaro, kuwa guudo bulshada guud ku saabsan iyo kuwa ku saabsan dadka laftooda ducaadda ah ee cilmigii meel ka gaadhay halka ay joogaan se hore uga sii socon lahaayeen. waxyaabahaasuna waxyaabaan dareynayna insha allahu tacaala. safarada haddaynu u nimaadno, dabcan aad baad u safartaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, meelo fara badan oo runtii taarikh nololeedkaaga aan ku sheegnay ayaad martaa. waxaan rabaa inaan dul istaago 2 safar oo aad ku tagtay dalka Malaysia. safar caalamka muslimiinta oo dhan baa la isaga yimi oo arrinka Qudus baa lagaga tashanayay. safar kalena wuxuu ahaa safar dacwadeed oo aad gobollo badan oo Malaysia ku soo martay. labadaas safar markaad dul istaagto maxay ku saabsanaayeen, sidoo kale maxaad odhan kartaa waad ka soo faa'iiday adigu ka Dr. Xasan ahaan? markaan ku bilaabo safarkii ugu dambeeyey oo loogu talagalay Qudus in loogu heeliyo oo culimadii caalam alislaami, Yurub waa laga yimi, Afrikana waa laga tegey, Asiana aad baa la isaga yimi, hadday Bakistaan tahay culimadii Hindiya, nadwat alculamaa ninkii haystay, allayla khaliijka un oo hadda xasaasiyadan caalamka ka jira kulley uga gaabsaday culimadii khaliijku nooma iman. qatar waa laga yimi, laakiin khaliijka badankiis, kuweydna waxaan badnayn baa ka yimi, laakiin caalamulislaami cidi kama maqnayn. walow mu'tamarka ay ugu badnaayeen culimada Falastiin oo 2 qaybood ahaa, hay-adda culimada Falastiin ee gudaha iyo hay-adda culimada Falastiin ee khaarijka, dadkii qaxaya caalamka kala joogay. mu'tamarkaas halkudhigiisu wuxuu ahaa culimada islaamku intay isu yimaadaan go-aanada ka soo baxa in loo bandhigo xukuumadaha islaamka say ugu heelin lahaayeen qadiyadda Qudus oo hadda kolley yahuuddu ay ku wado oo lala xoogle ay ku wado. tiina ilaahay mahadii waxaa ku guulaysatay dowladda Malaysia, iyadaa shirka waxa weeye marti qaaday. ra-iisul wasaaraha gurigiisii baa lagu soo xidhay, ilaahay mahadii, Najiib maalinta qadada nagu sameeyey gurigiisa. dowladdii Malaysia way qaadatay mashruucaas inay ka howlgasho. Turkiga isaguna si xoog leh uga soo qayb galay oo laga yaabo shirka labaad in lagu qabto. waxaan odhan karnaa un go-aanka ugu weyn ee ka soo baxay labo ahaa in xukuumadaha muslimiinta culays lagu saaro say kaalintooda uga qaadan lahaayeen Qudus, iyo shucuubta muslimiinta ee kala duwan, afafka kala duwan ku hadlaya sidii loo gaadhsiin lahaa messajka ah Qudus inay tahay qadiyad muslimiinta u taalla oo aan u oolin Falastiin. taana insha allahu tacaala messajkeedii wixii af Soomaali ku hadla anaa laygu soo dhiibay, waanaanu insha allahu tacaala bilaabi doonaa inta laxaadkayga inaanu mawduuca insha allahu tacaala si fiican uga hadalno. safar waa kaas. ka labaad wuxuu ahaa jawla dacawiya oo aan ku tegey ilaa 2 gobol oo ka mida Malaysia. waxaana ii sahashay ilaahay mahadii, muftiga ayaa CV-gayga loo gudbiyey, kadibna casuumaad baan ka helay Malaysia. markii aan tegeyna muftigaaba ii sahlay in gobolada xitaa muftiyiinta jooga
gobol walba muftiga joogaan qaabilayey masjidka ugu weyn iyo dadka dacwadda gacanta ku haya ayaan la kulmayey kadibna masaajidadan ka jeedinaya muxaadaraad waxaa iga soo baxay ilaahay mahadii waxa laynaga aaminsan yahay oo muftiyiintoodu xitaa waxay igu lahaayeen annagu soomaalidu inay naga cilmi badan tahay xagga diinta oo carabida naga taqaanaanu ognahay laakiin annagu waxaanu ku fiicannahay practicalka inta yaraanu naqaanaanu dhaqan gelinaa intaasaanu dhaqan gelinaa waxaa iga soo baxay furasta aynu haysanno iyo maskaxda aynu leenahay iyo mustawaha aynu joogno iyo isha laynagu eegayo ficlan inaynu miisaan ku leenahay caalamka aynu ku leenahay laakiin aynaan garanayn si aynu uga faa'iidaysan lahayn waxyaabahan ka faa'ida waxaa ka mid ah waddankaas waxuu halkaa ku gaadhay midnimo iyagoo diimo kala duwana hindoos hindiya buudiis jayniisa malay oo muslima haddana markay noqoto waddanka iyo horumarkiis ay u wada midaysan yihin dhinacna uga soo wada jeedaan waxyaabaha kolley iyagana aan ku bogaadiyey innagana xaggeena niyad jabka igu keenay in inagoo wax walba ka midaysan haddana dadku ay kala jeedaan guud ahaan waxaan odhan karaa khibrad badan oo caalamku wuxuu ku horumaray iyo waxa uu ku dibdhacay aan si layfa ama practical aan u soo arkay ayaan waxa weeye kala soo kulmay ilaahay mahad jazaak allah khayr kuntii gabagabadii barnaamijkeena kusii dhowaanayna waxaan rabaa inaad daqiiqad gudaheed mid ka mida culimadaadii adiga wax ku soo baray oo runtii noloshaada raadeeyey bal inaad erey ka tidhaahdo waxaan si gaara u tilmaamaya kolley culimadaydu aad bay u badnayd boqolaal waa gaaraya maan filayaa intaanan jaamacadda tegin iyo ka hor iyo dibba laakiin 3 sheekh baa igu weynaa oo kow ka yahay waalidku isagaanan ku noqonayn horaan uga hadlay kutubtii asaaska ahayd isagaa ii bilaabay shiikhna waa markaan madiina tegey sheekh cabdilmuxsin alcabaad oo hadda 9-kii cagacagaynaya shiikhna waa sheekh cabdikariin xasan xoosh oo isaguna sayskayga ugu xooga badan lahaa markaa garan maa keemaan sii daneeyaa ka soomaaliga mise ka sacuudiga waayahay adigu dooro marka 3daa mid ahaan طبعا laba asaaskaagii bay soo dhiseen midna intii aad weynaatay ku saameeyay waxaan insha Allah taala xagga daada iyo miisaankaba si gaar ah u sii danaynayaa Sheekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Abbad ibn Hamad ibn Abdul Muhsin ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr oo hadda filayo daadiisu la 67 ay tahay aabana sheekh u ahaa culimadii aabbo xusoo dhigtay kamid ahaa anigana sheekhi noqday jaamaca islaamiyana xilliyaday ugu awooda badnayd sheekhii waxa weeye gacanta ku hayay ibnu baazna gudoomiye ku-xigeenka uu ahaa in badanna macallin ka soo noqday saameyn weyna jaamacadda ku lahaa oo ay ka mid tahay kutubta ama makhtuudaadka jaamacadda yaallay ku faanto shiikhaa xilligiisiba caalamka laga keenay oo culimadii caalamku ay ka keeneen shiikhaas waxyaabaan ka soo qaadan kara waxaa ka mid ah ku dayashada mudan waayo waxaynu ku jirnaa barnaamijkii qudwa lishabaab qudwada waxa weeye ama ku dayashada dhalinyarada shiikhaasi hanka u lahaa waxaa ka mid ah masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aynu ogsoonnahay axaadiidta ugu badani inay masjidkiisa ka baxday waayo axaadiistan aynu hayna waa masjidkiisa su-aalaha lagu weydiinayay khudbadihii jimce talooyinka iyo tusaalaha ku bixinayay jaamacaddii nabigu aasaasay ugu horreysay masjidkiisay ahayd 10 sano cilmiga uu ka faafinayay axaadiidta ugu badan ama sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaasay ka soo baxday shiikhaasi ilaahay jaanis buu siiyey wuxuu diiladiisa ka dhigay 6 kitaab ee xadiidka ugu muhiimsan caalamka muslimiinta agtooda albukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maaja inuu ku dhammeeyo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam laftiisa kitaab waliba dhowr sano qaatay oo laga yaaba muddo 30 sano ah marka la isu geeyo ayuu 6 kitaab waday intuu dhameeyay buu mar labaadkii ayuu hadda wuxuu wadaa bukhaari buu ka wadaa isagoo 86 sano ah muddo 40 sano ka badan buu masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka dhigayay marka noloshiisa la eego iyo xitaa maamulidda uu jaamacadda maamulayay culimadii xilligaa la joogta waxay ka sheegaan waxyaabo la yaab leh oo maanta siyaasiyiinteen iyo ganacsatadeen iyo culimadeen iyo nin kastoo maamul haya iskuulna allaha ka dhigay
uu u baahan yahay inuu waxa weeye qudwo ka dhigto. shiikhaasi gaadhiga jaamacadda marka lagu qaada lagu wado gurigiisa lagu wado, hadduu tukaan dan gaara uu ka leeyahay ciyaalkiisa inuu caano uga iibiyo, gaadhiga wuxuu odhanaya laamiga istaag, laamigii u dhexeeya jaamacadda iyo gurigiisa. inta dukaanka loo bariyay isagaa u lugeynayay, waana guddoomiyihii jaamacadda. xilliyada qaar waxaa dhacaysay bacda duhur oo wakhti la shaqeeyo aan ahayn inuu u baahdo shaqada inuu ku soo noqdo isagoo guddoomiyihii jaamacadda ah ama wufuudda qaar uu ku qaabilo. dabeedna waxaa la arkaa isagoo furihiisita waa guddoomiyihii jaamacadda, weeshmaan ma joogo, xoghaya ma joogo, cid kalena ma joogto. waxaa la yidhi maad shaqaalaha qaar u yeedhi, wuxuu ihi xilligii shaqada loogu talagalay waa dhammaatay, qofna u yeedhi maayo xilligii shaqada xilli aan ahayn, wakhti baa lagula heshiiyey. isagaa shaqaysanayey, isagaa shaaha shubayey, isagaa albaabkii furayey. jaamacad dhan oo cimlaaq ah oo miisaaniyaddeedu miisaaniyad dowladeed ay ku dhowdahay buu maamulayay. marka ficlan ilaa haddana ilaahay cimri wanaagsan ha sii siiyo, sidii buu u wadaa cilmigii iyo dacwaddii u wadaa. shiikha noloshiis iyo dadaalka iyo hankiis ilaa hadda uu wado, isagoo ilna beelay ilaa ay aad u daciif tahay ayuu weli masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam fadhiyaa. marka ficlan saameyn badan ayuu kolle igu yeeshay. aad baad mahadsantay. su-aasha ugu dambaysa doctor xasan sheekh cali warsame, waxaad jeceshahay dhalinyarada inaad in badan la hadasho, aqoonta gaadhsiiso, talooyinka gaadhsiiso. waxa ugu badan ee aad jeceshahay inaad kala hadashaana waa in naftooda ay horumariyaan. maxaad odhan lahayd talada ugu dambaysa ee dhalinyarada aad siinayso ee aad odhan lahayd noloshiina iyo hankiina kor ugu qaado, noloshiina ku horumariya, ama wadooyinka ugu fudud ay u mari karaan inay noloshooda horumariyaan? wallaahi dhowr qodob baan kusoo koobaya insha allahu tacaala. aan u arko kolley inaynu aada ugu baahan nahay dhammaan, walibana dhallinyaradeenu ay aada ugu sii baahan tahay. qodobka koowaad horta inuu ogaado wuxuu yahay man huwa. dad badan baan is ogeyn mabda'ooda iyo waxay aaminsan yihiin iyo dhaqankoodu wuxuu yahay iyo diintoodu waxay tahay. shakhsiyadda uu yahay horta inuu ogaado waxay lafdhabar ka tahay, hankiisa iyo guushiisa qeyb weyn bay ka tahay. haddii qofku aanu wuxuu yahay baanu garanayn oo mar waxa weye ninka maraykanka uu iska dabagelayo, marka hindiga uu daba socdo, mar jiniiska uu iska dabagelayo, ta noocaasa waxa weeye bulshadiisa dhexdoodana waa ku khasaaroobayaa, waxa weeye ilaahay agtiisana waxba uma yaalaan. marka shakhsiyadda islaamiga ah qofka muslimka wax laga doonayo qofku inuu waxa weeye ta noocaasa uu ku faano, mabda'iisa iyo kaljarkiisa iyo hankiisana taa uu ku saleeyo, waa midaan insha allahu tacaala qabo. waayo diinteenna islaamku nolosha horumarkeedana waaba dee loo keenayo, waa loo soo dejiyey. aakhirana nolol wanaagsan in lagu noolaado, labadaba waa inoo damaanad qaatay. qodobka aad baan ugula talinaya dhalinyarada islaamnimadooda iyo mabaadi'dooda inay ku faanaan, inay bartaan, daneeyaan, difaacaan. waa qodobkaan u arko guusha koowaad inay tahay. waxaa waddankeena aada ugu badan dad laga yaaba afkaar kaloo bulshadeena ka fog islaamnimada xambaarsan, laakiin caloosha ku haysto aan muujisan karin. taa lafteeda qofku inuu caddaysan kari waayo waxa uu xambaarsan yahay waxa weeye waa nooc waxa weeye guul daraa weeye. qodobka labaad hankoodu inuu sarreeyo oo maanta inuu ka fakero guri yar iyo gaadhi iyo mushahaar, inuu hankiisa ka weynaado. hadba sida hankaagu yahayna baa tasarufkaaga iyo ficilkaaga iyo waxa aad qabanaysaa u noqonayaa. marka hankanayna aada loo sarraysiiyo oo jaanisyada kala duwan laga faa'iidaysto, alle subxaanahu watacaala in lagu xidhmo, balayn iyo qorshe qofku inuu samaysto. oo ninka dhallinyarada ee maanta 20 jirka ah inuu isweydiiyo 30 markaad gaadho maxaad ummadda ku soo kordhisay, qiimo intee lagbad ummadda ugu fadhidaa, maxaad ku fiican tahay, maxaad qaban kartaa inay u kala caddahay. iyadana insha allahu tacaala waan qabaa. halku dhigna noloshaada ha u noqoto. haddii adduunyada aadan waxba ku siyaadinayn adaa dheeraad ku ah. adduunyada haddaadan hal abuur keenin, dadka aadan wax tarayn, adigaa dulsaar ku ah. bal waxaa laga yaabaa adiga in loo baahdo ummadda in lagaa xakameeyo, lagaa xidho. talooyinkaas baan insha allahu tacaala si gaara dhalinyarada ugula talinayaa. jasaakum allahu khayr. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doctor xasan sheekh cali warsame oo marti inoogu ahaa barnaamijka caweyska culimada. intaynu kulankan mid lamida ku kulmi doono, waa aniga oo xamse cumar ku joogo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. waxaan halkan kusoo koobaya insha allahu tacaala qiso aad ii cajabisay.
loona la doonayo qofka muslimka inuu ku wantoobo waxna ka qaato. sheikh la yidhaahdo almubaarak oo waxa weeye dhalay caalim weyn oo culimadii muslimiinta ka mid ah cabdullahi ibn almubaarak ayaa wuxuu ahaa addoon buu ahaa la leeyahay. waxaa dhacday maalintii dambe isagoo beertii falaya ayaa ninkii beerta iska lahaa isagoo muddo badan ka shaqaynaya 10 sano ka badan iyo maalintii dambe wuxuu ka codsaday xabad rumaana inuu keeno. dabeedna markuu sidhi cun xabaddii buu arkay inay dhanaan tahay uu ku celiyay wuxuu yihi xabad labaad iga soo goo. mid labaad buu doonay inuu soo gooyo. dabeedna markuu tii labaad u keenay buu arkay inay tii labaadna dhanaan tahay. wuxuu yihi xabad saddexaad ii keen. tii saddexaad buu haddana u keenay rumaanta ahayd. wuxuu arkay inay qeydhin tahay oo aanay bislaan. ninkii sayidka ahaa ee iska lahaa intuu xanaaqay buu ku yidhi beerta intaasoo sanaad ka shaqaynaysa 12 sano kala garan maysid xabadda rumaanka ee bislaatay iyo ta aan bislaan siday ku dhacday. aad buu u canaantay. wuxuu yihi haddaanan weligayba cunin saan ku kala gartaa weligay afkaa maan saarin buuri. wuxuu yihi adoo ka shaqaynaya sidaad u cuni weyday. wuxuu yihi imaad fasaxin inaan cuno 12 sano beertaa ka shaqaynayay xabad rumaana inuu ka cuno wuxuu ka sugayay ninkii lahaa inuu fasax qaato iskama cunayn. xalaal miradka markuu sameeyey ninkii waa xoreeyey hantina waa siiyey inantiisina waa u dhis. ninka noocaas ee addoonka ahaa ee beerta sidaa u ilaaliyey alla subxaanahu watacaala wuxuu qadaray inuu ka dhasho caalim weyn oo culimadii muslimiinta ugu waaweynaa oo la yidhaahda cabdullaahi ibn almubaarak oo culimmadu markay ka hadlayaan waxa weeye ay yidhaahdeen sida ismaaciil ibn abi cayaash uu tilmaamayo u malayn maayo dhaqan wanaagsan dabeecad wanaagsan oo alla u abuuro lagu janno tegayo ilaa ilaahay wuxuu ku abuuray ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibn almubaarak. ibnu xajar markuu ka hadlayey noloshiisa uu ka hadlayey wuxuu ku soo koobay jumicat fiihi khisaalu lkhayr. ninkaa waxa lagu kulmiye wanaag oo dhan baa lagu kulmiyey. culimmadu intay isu yimaadaan kuwii xilligiisa joogay ayaa waxay ku subcinayeen ninkaa wanaaggiisa ayay ku subcinayeen wanaaggiisa ayay ku subcinayeen. ninka noocaasa sidaa u wanaagsanaa ee ilaa hadda laga sheekeeyo waxaa noloshiisu ay ku bilaabatay qisada aan idin sheegay aabbihii iyo hooyadii sida isugu yimaadeen oo ku salaysan xalaal miirnimada iyo waracnimada iyo in xalaasha lagu dadaalo. allana subxaanahu watacaala ubadkiibuu u wanaajiyey ilaa xaalkoodu sidaa u gaadhay. wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.